الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه. وبعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. يعني إن شاء الله درسي نعاوة يهدي وقت كلا ينوح اللبا وحصات عن دونا وقفات مع أحداث العالم. waxaynu jiro dul taagaynaa dhacdooyinka maanta dunida ka socda. marka aan rabno inaan dhacdooyinka dunida ka socda is-ag taagno, ugama jeedno taxliilaad siyaasiya inaan ka warranno iyo qaababka laga yaabo inay isu dabagalaan ama oo doroska ay bini aadamku oo dorosaan dhacdooyinka dhici doona. laakiin waxaan rabaa inaan qaab ka gadisan uga warranno oo ah inaynu axdaafta isku dayno inaynu tacliiqino bilkitaabi wasunna, sunanka ku soo arooray qur-aanka iyo sunnada, inaynu wax kaga tilmaamno. awalan, axdaafta in lagu cibro qaato qur-aanka iyo sunnada ayna baray. walidalik baa ilaahay subxaanahu watacaala qur-aanka markuu inooga warramo qisas ambiyo ama rusul ama dad mujrimiina ama duwal baaba-ay ama duul soo kacay oo cusub, koox kastoo ilaahay ka warramo subxaanahu watacaala qur-aanka inta badan haddaad akhrido waxaad arkaysaa iyadoo alle subxaanahu watacaala tacliiqaadku uu saarayo la rabo inaynu ka faa'iidaysano cibar iyo waanooyin ay ku jiraan ama wax ku qaadasho ay ku jirto. haddaan 2-3 tusaale bixiyo intaynan dariska gudihiisa gelin. ilaahay subxaanahu watacaala qur-aanka matalan wuxuu inooga warramay nebi yuusuf, qisada nebi yuusuf qiso aada u ballaadhan baa ilaahay kaga warramaya calayhi salaatu wassalaam. qisada waa alle ka warramaya nebi yuusuf waxaa laga warramayaa isaga oo yar, isagoo god lagu riday oo walaaladii makri u sameeyeen ama dhakreen ama khiyaameeyeen oo god lagu riday, isagoo la iibsaday oo addoon noqday. waxaa alle ka warramaya subxaanahu watacaala isaga oo haddana gurigii boqortooyada la geeyey. waxaa qur-aanku inooga warramaya isagoo haddana xabsi galay. waxaa qur-aanku ka warramaya haddana isagoo madax noqday oo dowladdii maamulkeedii ka qayb galay. waxaa qur-aanku ka warramaya isagoo soo ururiyey haddana waalidkii iyo walaaladii iyo wixii oo dhan reerkii dib isugu keenay, oo aan qisadu halkay ka bilaabmato alcasri adahabi libani israa'iil. suuradda qisada markay dhammaato ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu leeyahay marka afalam yasiruu fi lard fayanduruu kayfa kana caaqibatu aladiina min qablihim waladaaru alaakhirati khayru liladiina itaqaw afalaa tacqiluun xataa ida istay'asa arusul wadannuu anahum qad kudibuu jaa'ahum nasruna fanujiya man nashaa walaa yuraddu ba'suna can alqawmi almujrimiin laqad kana fi qasasihim cibrat liuli lalbaab ma kana xadiiثan yuftara ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. إلهي سبحانه وتعالى وحين ليه مركو قصة دير كورمي نيدان دولك مرين وإيجين كوي هراء الظالمين تها عرفتو دي وحي كدن بيسي كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كواني يجا كور ريي عرفتو دي وحي كدن بيسي. waxaa ilaahay tilmaamaya daarta aakhiro inay khayr badantay kuwa alla ka cabsada. dabeetana ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu inoo tilmaamayaa in dadka la itixaamo oo rusushu ay marxalaad gaadhaan ay dadka iimaankoodaba ka quustaan ama mujtamacii rususha la socda ay u maleeyaanba in loo been sheegay ama in rusushaba la beeniyey. kudibuu xaaladaas marka la gaadho baa ilaahay leeyahy subxaanahu watacaala ayaa waxaa yimaada baa la leeyahay nasriga iyaga guushayada. wakti bini aadamku dhacdooyinku intay isku dul fuuleen xaddul ya'si uu ku dhadhowaaday ayaa ilaahay subxaanahu watacaala isbeddel ridaa. dabeetana waxaa yimaada baa ilaahay leeyahy jaa'ahum nasruna fanujiya man nashaa walaa yuraddu ba'suna can alqawmi almujrimiin. waxaa la badbaadiyaa baa ilaahay leeyahy ciddii alla doono. kuwa mujrimiinta ana ilaahay subxaanahu watacaala ciqaabtiisa ayaa ku dhacda. markii ilaahay xaaladdaa inoo sawiray,
xaalad xata alambiyaa ay gaadhayaan oo dhib badan markii laynoo sawiray xaalad ma ku xigto oo ah farax iyo nasri iyo guul iyadoo la helay ayaa ilaahay subxaanahu watacaala wuxuuna leeyahy laqad kaana fii qasasihim cibratun liuli lalbaab qisaska aan idinka warramay baa ilaahay leeyahy subxaanahu watacaala cibro iyo wax ku qaadasha ugu sugan dadka cuquusha u saaxiibka ah walidalik waxaa habboon bini aadamku dhacdooyinka agtiisa ka dhacaya inuu si xooggan ugu fiirsado tii taariikhigii hore dunida soo martay inuu akhriyo o arko laakiin ta uu la nool yahayna inaanu gaafil ka noqonin dhacdada iyo sida loo tacliiqiyo masala haddaan laba xadiis tilmaamo ah xadiiska nabiga calayhi salaatu wasalaam ka mid a iyadoo dagaal laga baxay oo qof dumari oo irmaan oo caanale ilmaheedii daydayayso oo dadkii sabyiga la qabtay ay ka mid tahay waxaad qiyaastaa hooyo goob dagaal joogta oo ciddii ay la socotay la jabiyey oo ilmaheedii baadidoonkii ku jirta oo dabeetana wareerkii iyadoo ordaysa markii dambe ilmaheedii heshay oo intay dhufsatay laabta ku qabatay xaadisadaasuu nebigu calayhi salaatu wasalaam tacliiqiyo wuxuu yidhi saxaabadii war ma u malaynaysaan taasi ilmaheeda inay dab ku ridi lahayd waa la arkaa qofkan iyo xaaladda ay ku sugantahy hooyo xaalad adag ku sugan weeyaan hooyadaasuu nebigu tacliiqiyo wuxuu leeyahay ma u malaynaysaan tani ilmaheeda inay dab ku ridi lahayd markaasay yidhahdeen ma filayno inay tani ilmaheeda dab ku ridi lahayd xadiis saxiixayn ku soo arooray markaasuu nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam lallahu arxamu bicibaadihi min hadihi biwaladiha ilaahay subxaanahu watacaala baa uga naxariis badan addoomihiisa tani ilmaheeda say ugu naxariisanayso waa la odhan kari lahaa in sideedun loo sheego ilaahay inuu naxariis badan yahay laakiin dhacdadani raad ka gedisan eraygan qura in la sheegaa bay tilmaamaysaa oo waxay tilmaamaysaa hooyo dhibaataysan oo ilmaheedii heshay oo intay la booday laabta ku naftay oo naas ku duwaysa siday hooyadaas ilmaheeda ugu naxsan tahay ayuu nebigu leeyahy calayhi salaatu wasalaam dhacdadaa intuu u tilmaamay ayuu yidhi inay dab ku ridayso ma u malaynaysaa yacni ilaahay subxaanahu watacaala inaanu addoomihiisa jeclayn rabin inuu cadaabo maa yafcalu allahu bicadaabikum in shakartum wa aamantum dacdo kale haddaynu tilmaamno nebiga calayhi salaatu wasalaam isagoo saxaabadu la socoto xadiiska saxiixu muslimka ku yaalla ayaa wuxuu soo galay suuqii magaalada madiina suuqa markuu soo galay buu waddada wuxuu ku arkay orgi yar oo dhukan oo meyda dhukanaantu waa dhaga yaryarida orgi yar oo dhukan oo haddana meyda oo suuqii baac mushtarka dhinaciisa yaalla buu arkay saxaabadiina way hareera socotaa saxaabadii xaadisadan buu ku jeediyey nebigu dhacdada tan intuu orgigii yaraa ee dhintay ee baktiyey dhegta ku dhegay yar ayuu nebigu wuxuu ku yidhi war yaa dirham siistay intuu iyagii ku jeestay kan yaa dirham siistay waxay dhahdeen ilahi rasuulkiisa o maxaan ku falaynaha dirhamkiisa hadduu dee caafimaad qababa oo neef soconaya ahaan lahaaba abaan u qiimo yeelana in orgi yaroo dhukan ahaayo isagoo mayda dirham inaanu siisano maxaa lagu falaya haddaba yaa qaatay buu nebigu yidhi yaad ka qaatay waa bixinayaa waxaa la tilmaamay inaan loo baahnayn qaadashadii markaasuu nebigu calayhi salaatu wasalaam dhacdadaas dadku wada fahmi karo ayuu tacliiqiyey markaasuu wuxuu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam ilaahay subxaanahu watacaala adduunkan dadku isku haystaa kaa kala qiimo liitee buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam kanaa wada nacdeen iibkiisa iyo abaalkiisa iyo siintiisaba kaa aad diideen adduunku ka liitee buu nebigu leeyahy calayhi salaatu wasalaam idan dhacdada in la tacliiqiyaa waa min sunnati moxamed calayhi salaatu wasalaam waa wax aqoonta waxbarashadu ay tilmaamto waa waxyaabaha qofka bini aadamkii xoog wax ugu fahmi og yahay inuu maqal qura adeegsado iyo in maqal iyo aragtiba wada adeegsado way ka faham badan tahay in wax looga warramo qura walidalik ba qur-aanku in badan wuxuu inoo tilmaamayaa inaynu wax u fiirsano وكما هلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد إلهي وحلي سبحانه وتعالى بضنا انت أنه هلقنك ونهرتوت
duul ka xoog badnaa oo ka qabasho adkaayo ka digtaytarsanaayo ka daaqisanaa oo baadi doonay dhulka oo aan helin meel mafar iyo malja iyo meel loo baxsado toona ilaahay markaasu wuxuu leeyahay inna fii dalika ladikra arrinka kan waxaa ugu sugan baa ilaahay leeyahay waano liman kaana lahu qalbi xayi iyo nool qof dareen caqli iyo qalbi soo jeeda loo nool amase qof wax dhegaysanaya wax fahmi kara isagoo xaadira wax dhegaysanaya waana ugu sugan buu alla leeyahay subxaana watacaala taa macnaheedu waxa weeyaan nolosha inaynu in badan u fiirsano nebi muuse ilaahay soo diro waxa ilaahay leeyahay walaqad arsalnaa muusa biaayaatina an akhrid qawmaka min adulumaati ila annuur wadakirhum biayaami illah baa ilahay ka saar reer banu israa'iil baa loo soo diray nebi muuse iyo fircoon iyo kooxahood iyo waxaa la yidhi dadka waxaad ka saartaa madowgoo iftiinka u saar laakiin maxaa la yidhi kuwaani ilaahay ayaamihiisa kuwaani baa la yidhi waxaa maalin isbedelaya watilka alayaamu nudaawiluha bayna annaas waxa duul la halaagay waxa duul la barwaaqeeyey waxa nolol isbedeshay ayaamkaa ilaahay subxaana wa tacaala ay ciqaabkiisa iyo nicmadiisu soo degto wax kuwaani baa ilahay yidhi subxaana wa tacaala ina fii dalika la aayaatin likulli sabaarin shakuur baa markaa ilahay arrinkan wuxuu aayado ugu sugan tahay mid kastoo beledu markay dhacdo sabir badan nicmadu markay timaadana shukri badan oo aan kibrin walidalik maanta dhacdooyinka caalamulislaami ka dhacaya waxaa ka dhacay tunis waxaa ka dhacay masar waxaa ka socda libiya waxaa ka socda yeman waxaa ka socda bahrain waxaa ka guuxaya caalamulislaamiga isku raran waxay u baahan yihiin dadka muslimkiihi inay ku waantoodaan inay u fiirsadaan inay eegaan inay wax ku qaataan waqfada koowaad aynu tilmaamaynaa markaa waxay tahay dhacdooyinkaasi waxay muujinayaan ilaahay subxaana wa tacaala keligii inuu dunida maamulo gacantiisana tadbiirkeedu inuu ku jiro cid la maamushana inaanay jirin tabaaraka aladii biyadihi almulk wa huwa calaa kulli shayin qadiir ilaahay subxaana wa tacaala in gacantiisa ay ku jirto adduunkan maamulkiisa dhammaantii oo isagu siduu doono u galo waxaynu ka dareemaynaa aayaadka ilaahay leeyahy subxaana wa tacaala qul nabi maxamed baa ilaahay wuxuu leeyahy dadka waxaad ku tidhaahdaa qul yaa muxamed linnaas calayhi salaatu wasalaam maxay ku dhabaa la yidhi allahuma malika almulk tu'ti lmulka man tashaa وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير وحدثك وغورنطابا إلهي إلهي سبحانه وتعالى إلهي سبحانه وتعالى ملكي قدمانتي إني قعنتي سكتبته عدو الدونين سقطسيه عدو الدونين كسي ببالي ملكي قال ما تعلين لقطه والله تكون نبيا لكن واحد أرجع تقارن تكون نبيا ربي كتني بيو ويجوا كل جود الله خوري عالم كأنه ما أنت شوفونه حب مغضى شاشات كتلفزيون ما كذا ركض آيات كأكيسا يقول فهمتكم أعي ما تطلبون ورطموني يقول نواقيا إلى هنا النزع بقص المال إنه سيب أيو لقى سيب أيو ملك قاعد إلى دوره waxa rabbiina leeyahay ciddu doono isagaa dulleeya ciddu doonana cizeeya waxay dhacdooyinkan arkaynaa qaar shalayto farta markay taagaan waddan dhani uu gariiri jiray ummad dhan god madow ku guri jiray wuxuu yidhi ha gawraca la gawruci jiray maantana caalamka kala sariiruu seexday iyo meeluu istaago dunida kala shalayna caynkaa ahaa ilahay wuxuu ina leeyahay tuciz waxaad dadka u sheegtaa inuu alla subxaana wa tacaala mulkiga ka siiba cidduu doono oo cidduu doono uu kor yeelo cidduu doonana uu hoos dhigo arrinku inuu gacantiisa ku jiro idan mulkigu waa lilikhtibaari waalimtixaan